waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed warbixin gaaban ka siiyo askarigii sida sharci darrada ku qaadanaya lacagta ay fadhiyay wadada loogu leexday isbitaal Madiina sida sharci darrada ku qaadanaya lacagta ay bulshada Soomaaliyeed aan ugu mahad celinayno sida tooska noola soo xiriirtay noo soo diray clipka ay ka soo duubeen waxaan haddana mar labaad rabaa iyadoo Ramadaan lagu jiro inaan u cadeeyo bulshada Soomaaliyeed askarigii la soo xiray isla maantana dukumiintigiisa iyo cadeymihiisa maadaama uu watay loo gudbiyay maxkamadda riboodkiisa beritu saacada ugu soo horeysana la geyn doono maxkamadda ciidamada qalabka sida lana waafaji doono sharciga askarigaas oo sida saxaafadaba ay soo xaqiijisay ku xiran xarunta baaris dambiyada waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed ugu mahad celiyo sida wanaagsan ay nolol shaqeynayso sida wanaagsan ay nolol soo gudbiyeen ama nolol soo wadaageen clipka ay soo duubeen waxaan bulshada Soomaaliyeed ka codsanayaa in ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu yahay gacmihiina oo idinku aad ku tashanaysaan lana rabo wixii qalad aad aragtaan inaad ku soo sintaan cadow ha ahaado shakhsi booliis ha ahaado shakhsi kasta uu yahay hadduu dambi ku jiro ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu idin ballan qaadayaa inuu gacanta ku soo dhigi doono sharcigana la tiigsan doono aysan jirin wax baqdin ah oo laga qabo in booliiska Soomaaliyeed uu arintaasi raali ka yahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed raali kama noqon doono askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed booliiska militariga qof walba uu yahay in gudaha magaalada uu ku dhibaateeyo bulshada Soomaaliyeed sidaan horena idin la wadaagnay waxaan gacanta ku soo dhignay shirkado moobilada dhaca oo qaarkood ay ganacsi ka abuurteen dhaca hantida ummadda Soomaaliyeed sida maantana haddana ay xalay noola soo wadaageen bulshada Soomaaliyeed askarigaas qaatay nambarka gaarka ah una qaatay inuu lacagaha sharci darrada ku tuurto bulshada Soomaaliyeed uu ka dhaco bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay uma qalantaan waxyaabahaas oo kale nala soo wadaaga waxa booliiska Soomaaliyeed idin ballan qaadaya shakhsi kasta oo talaabo noocaas lagu arko kaliya looguma simaayo in maxkamad la istaago ee waxa lagu simi doonaa in ciidankana laga ruqseeyo maxkamadna la geeyo sharciga la waafajiyo xabsi dheerna loo diro insha Allah wixii maanta ka dambeeyay waxa idin ballan qaadaya inaad la soo wadaagi kartaan noogeysiin kartaan nambardeena gaarka ah oo 1991 kana waad haysataan nambarada gaarka ah iyo beejeska booliisku leeyeen waa taqaanaan waa ku maasantii sida noola soo xiriirteen waxaan idin xaqiijinaynaa askarigii la soo qabtay isla berina maxkamad la horgeyn doono insha Allah waa maasantii hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo ku sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobilka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeegga internetka hormuud ee ADSL Plus guriga xafiiska ama xarunta shirkadaada isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida